السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا وركيني مالي لها أها الجنال كينا قاعية ميديا. فضلا هاديات كو عصبتها الجنالك وحكا عدسانينا إن سبسكرايب سارتو سي أدوها الشو ضمان وراركا مالي لها هالكان كبحا. dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay qaadanayso ku dhawaad 4,000 oo macallimiin. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo loo doortay gudoomiyaha golaha sharci dejinta bulshada Bariga Afrika. madaxweynaha Koonfur Galbeed oo baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya magaalada Walaweyn. muhaajiriin ay ku jiraan Soomaali oo la leeyahay kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku degatay xeebaha dalka Liibiya. qowmiyad aan Soomaali ahayn oo ka walaacsan howlgallada Minnesota ee ay ka wadaan booliska ICE. firdhiye iyo fiqi oo gaaray deegaanka Gumays. wararkan oo faahfaahsan waxaad ka dhegaysan doontaan janalkeena Gaaciya Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe saarato si aad u hesho dhammaan wararka maalinlaha ah ee aan soo gelino channelkeena Gaaciya Media. aad baad u mahadsan tahay. ololaha adag ee maamulka Trump oo ku qaadayo muhaajiriinta aan haysan dukumiintiyada sharciyeysan ee Mareykanka ayaa sababay walaac weyn gaar ahaan gobolka Minnesota. iyadaha walaaca aadka u daran dareemaya ayaa ka mid ah qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada ee ka soo jeeda dalka Itoobiya. walaacan ayaa sababay kadib markii saraakiil badan la soo dhoobay magaalada Minnesota. ka mid ah bulshooyinka Oromada ayaan lagu arag suuqyada iyo dhammaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo waliba goobaha ay isugu yimaadaan bulshooyinka Oromada ay ka kooban tahay. walaacan ayaa horay u ahaa mid Soomaalida kaliya ku eg balse haatan u sii gudbaya bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minnesota. madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya oo uu wehelinayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ugu tagay ciidamada daraawiishta waqooyi bari iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan difaacyada aagga Gumays. sida lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlayay goobta ayaa yidhi sida warbaahinta dowladda lagu daabacay, waxaan idin kula dardaarmayaa adkaynta nabadda, ilaalinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirka dalka iyo ka hortagga faragelin kasta oo shisheeye oo lagu doonayo kala goynta ummadda Soomaaliyeed. wasiir Fiqi iyo wafdi ballaaran oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa waxay hordhac u yihiin wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa maanta si rasmi ah loogu doortay gudoomiyaha golaha sharci dejinta ee baarlamaanka urur goboleedka bulshada Bariga Afrika ee sanadaha 2025-2026. doorashadan ayaa ka dhacday inta lagu guda jiray shirweynaha 20aad ee gudoomiyaasha baarlamaanada bulshada Bariga Afrika oo lagu qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda. shirka uu gudoomiyaha ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa. gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe ayaa uga mahadceliyey madaxda urur goboleedka bulshada Bariga Afrika dadaalka ay ku bixinayaan isku duwidda shirkan muhiimka ah. wuxuu gudoomiyaha muujiyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay ka qaybgalka iyo xoojinta iskaashiga gobolka maadaama ay ka mid tahay dalalka sida weyn ugu haminaya nabadda, isku xidhnaanshaha iyo horumar wada jir ah oo heer gobol ah. gudoomiyaha ayaa shirka kaga warbixiyey in Soomaaliya muddo dheer kadib ay si guul leh u dooratay 9kii xildhibaan ee ku matali lahaa golaha sharci dejinta bulshada Bariga Afrika. gudoomiyaha
ayaa sidoo kale sheegay in dalka Soomaaliya uu sanadkan adkiisa u diyaargaroobayo qabashada doorashooyin toos ah oo heer dawladaha hoose ah markii ugu horeysay muddo 56 sano ah kuwaas oo muhiim u ah hirgelinta geedi socodka horumarka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. inta shirka uu socday ayaa la isla gartay in Soomaaliya ay martigelin doonto kulankiisa kale ee xiga ee gudoomiyaasha baarlamaanada bulshada Bariga Afrika kaas oo lagu wado inuu qabsoomo bisha May ee 2026. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u diray baaq nabadeed oo degdeg ah oo ku socda bulshada ku dagaalamaysa degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha ayaa ku tilmaamay rabshadaha toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay Wallaweyn kuwa aan la aqbali karin isagoo ku adkaystay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda si loo badbaadiyo nolosha dadka iyo wadajirka bulshada Koonfur Galbeed. madaxweynaha ayaa cambaareeyay gubista guryaha khasaarihii naf iyo maalba lahaa isaga oo hoosta ka xariiqay in shacabka Koonfur Galbeed aysan marnaba aqbali doonin dagaal beeleed iyadoo weli ay socdaan xaalado adag oo ay ka mid yihiin abaarta caqabadaha bini'aadanimo iyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. madaxweyne Laftagareen ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka culimada dhalinyarada iyo haweenka in ay ka shaqeeyaan ay ka qayb qaataan soo afjaridda colaadda isla markaana ay taageeraan dadaalada lagu doonayo nabadeynta ee maamulka iyo hay'adaha ammaanka gaar ahaan magaalada Wallaweyn. madaxweyne Laftagareen ayaa ugu hambaliyeeyay ummadda iyo shacabka Koonfur Galbeed nabadeynta ay ka shaqeynayaan mar walba iyo goor walba. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dekedda weyn ee magaalada Muqdisho si isku mid ah u shaqayn doonto habeen iyo maalin. wasiirka wasaaradda dekedaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in shaqada dekedda weyn ee magaalada Muqdisho lagu sameeyay isbeddel isla markaana wixii hadda ka dambeeya ay shaqayn doonto habeen iyo maalin si isku mid ah. wuxuu tilmaamay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya in isbeddelka dhinaca amniga uu horseeday in dekedda Muqdisho ay si isku mid ah u shaqayso ama u shaqayn karto 24 saacadood habeen iyo maalin. waxaa farxad noo ah in aan ku dhawaaqno in dekedda magaalada Muqdisho caawa wixii ka dambeeya si rasmi ah u bilaabi doonto shaqo xilliyada habeenkii taas oo ka dhigan in dekedda bixiso adeeg joogto ah oo aan hakad lahayn. doon ay saarnaayeen muhaajiriin Soomaali ah ayaa waxay ku degatay xeebaha dalka Liibiya. doontan ayaa ka baxday magaalada xeebta ah ee Zuwara ee waqooyi galbeed ee dalka Liibiya sida ay sheegayso IOM. khasaaraha shilkan ayaa sababay ugu yaraan 42 qof in lagu la'yahay xeebaha dalka Liibiya. waxaa aad u soo badanaya muhaajiriinta ku dhimanaya xeebaha dalka Liibiya iyo dalka Turkiga. muhaajiriintan ayaa ah kuwa nolol u raadsanaya qaaradda Yurub ayagoo ka cararaya shaqo yaraanta iyo nolosha adag ee ka jirta qaaradda Afrika. waxaan halkan ku soo afmeeraynaa wararkeennii maalinlaha ahaa ee channelkeena Gaaciya Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe saarato si aad u hesho dhammaan wararka Gaaciya Media ka baxa. aad baad u mahadsan tahay. maalin wanaagsan.